waan u mahadnaqayaa dhalinyarada sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa salaanayaana bogaadinayaana gudoomiyaha xisbiga iyo dhammaan wafdiga la socda gudoomiye ku soo dhawo dhalinyarada iyo aqoon-yahanka gobolka Togdheer si gaar ah baan ugu mahadnaqayaa asxaabteeda dhalinyarada qiimaha badan boqolkiiba boqol waad mahadsantiin message-ka aad gudbiseen oo inaga mahadnaqayaa insha Allah bidmillaahi karim waxaan rajeynaa mustaqbal waxaan rajeynaa isbedel waxaan rajeynaa guul iyo inaynu sameeyno insha Allah bidmillaahi karim horumar wanaagsan mustaqbalka soo socda aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad u mahadsantiin gudoomiye dhalinyarada bartan ku sugan maanta bartan soo dhaweyntaada isugu timi waxa diyaar u tahay mar kasta iyo xilli kastaba inay xisbiga u cud hiiliyo hoob la garab taagnaato kulay Hargeysa ayaa darbiyadii mid ka mid ah qabyaalada jabisayo Cabdikariin Axmed Mooge iyo Barkhad Jaac Batuba tusaale nool u ahaa insha Allah burcana waxay ku xigi doontaa oo burca waxay noqon doontaa Faysal Cali Waraabe insha Allah taala soo saari doonta 2022 gudoomiye mar labaad iyo mar saddexaad baan ku soo dhaweynaynaa runtii waxa tahay gudoomiyaha hawlkara gudoomiyaha anigu dhalinyarada baan ku oran lahaayo xisbiga waa xisbiga dhalinyarada runtii kole intaas oo qof hal doora oo wada dhalinyaro ah ayaa runtii maxay toolay aan xisbiga ku aragnaa gudoomiye injineer Faysal Cali Waraabe ku soo dhawow gudoomiye gobolka adiga iskala waa gobolkaagi soo dhawow baan ku leenahay gudoomiye gobolkaagi ku soo dhawow marti kuma tiid gobolkaada iskale waxaan u soo baxnay maanta inaan adiga kugu soo dhaweyno gobolka waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha xisbiga ucid Mujaahid Faysal Cali Waraabe ahna waxa weeye madaxweynaha lixaad ee waxa weeye Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waxaan ku leenahay soo dhawow gobolkii raga ku soo dhawow ana aad ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga kuna soo dhaweynaynaa gobolka Togdheer waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow waxaan halkan aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa gudoomiyaheeni ruuxiga ahaa injineer Faysal Cali Waraabe oo runtiina soo gaadhay gobolka ahna gobolkiisii sugnaatay halkan waxaynu isugu nimi inagoo ah dhalinyartii gobolka Togdheer aqoon-yahankii waxgaradkii iyo inagoo isugu jirnaa ardayda jaamacadaha iyo kuwii ma garanaysaa adigu dhalintii gobolka Togdheer isku duuban waxaan halkan maanta ku soo dhaweynaynaa gudoomiye Faysal Cali oo leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkaaga Togdheer dhalintaadii dadka madaxda u ahayd insha Allah bidmillaahi karim una noqonaysa madaxweynaha dhawaan insha Allah marka koobaad ku soo dhawow gobolkaagii oo dhalinyartaadii iyo rag iyo dumar bas ay soo ag fadhida gacmo furan kugu soo dhaweynaysa sidaan haddaba ka aragno dhalinyar badan way kaaga dhowdahay way kula shaqeynaysaa anaguna waxaan rajaynaynaa inaan kula shaqeyno anagoo isku duuban ka gobol ahaan ka dhalinyar ahaan gudoomiye waxaan ku leenahay gacmo furan iyo qalbi furan gobolkii Togdheer ku soo dhawow wato aad iyo aad baa mahadsantiin deemaan horta arintan baanu filayno waxaan ku soo talagalnay Brito daalayraho jaamacada qalin jabideeda iyo magaranaysa wixii ka dambeeyo dad la kulmi doono laakiin waana sharafnay ilaahay idin sharafo sidoo fiican siiseen dhalinyarta maanta is urursatay ee garatay mustaqbalkooda inuu gacantooda ku jiro ilaahay ka soo horta waan idinku mahadnaqaya أنا مقالة بروح أنا وقعنا مقالة حريدة سومالند ما إلى حريدة سومالند يعني ما أنت واحد ويجي بقول كبست ديت وحوي دليرات نين كيسو يهاي ما أنت يا محاك قيسة نين يسوي الدوري إنه نفسي يسوي يصير ونقضه إنه مستقبل كينه الإنسان معه إذا قاعد أدخله مستقبل بقى بهانتي مستقبل كينا قعنتو كجرا قعنتينو قعن wax ma garad ah galina qoftiisu ka hadlaya oo nafka lehen ragii hore markii aynu waxba aynu baran abahay aqal buha 9 sano adeerkay waxa suldaan buha oqaashayni iyo salaadiinteena hore markii arin loo keeno saasay u eegi jireen waxay eegi jireen arintaasi saameynta ku yeelanayso communitygiisa reerkiisa هارسكت أدو أركينا فائدة وهم وسكت تركيج كان ما أنت محو إيجيا أدي محكو وجرة هذا يا محكو وجرة دنتينا إيجي مايو دنتينا ولا إنه إيجين